shalay ayay ahayd kolkii kuwa arxan laawayaalahii ay ku dileen magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Gacmay ilaahay naxariistiisa jannaha ka waraabiye arrinkaasi oo faticiso murugo iyo walwal baaxad weyn ku abuurtay ilaahanba ummadda Soomaaliyeed ee xurmeeya culimada diinkooda Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Gacmay oo gacan ka xaqdaran ku dishay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland maalinkii shalay maantana lagu aasay isla magaaladaasi Garowe haddaba maalnimadii maanta ayaa waxaan mikrofoonka TV-ga caalamiga ah ee Somsa TV aan la dhaxqaadnay culimada diinka ugu waaweyn magaalada Nairobi waxaanuna idilkoodba hor dhignay su'aasha siday u arkaan dilka Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Gacmay oo dhawaan lagu dilay magaalada Garowe sida lagu badbaadin karo culimada diinka Soomaaliyeed haddii staff loo sameyn lahaa iyo haddii ilaalo kale oo gaar ah loo sameyn lahaaba waxaanuna ugu horeyn xafiiskiisa magaalada Nairobi ku booqanay Sheekh Maxamed Cismaan waxaana sheekhu uu tacsi tiiraanyada u diray ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay sheekhu waxa kale oo uu eedayn dusha uga tuuray maamulka talada haya oo aan daryeelin culimada sida uu sheegay iyo waliba qoliyaha mucaaradka ah ee khalkhalka siyaasadeed ka wada gudaha deegaanada Puntland halkan waxaan maanta uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan culimada Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii uu ka geeriyooday Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Sheekh Cabdiqaadir Gacmay gacan ka gardaran oo san dambi ka galin ama maanta xaq ku lahayn ma arkaysa illa qofka xaq waa lagu dili karaa wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq marka halkan inaan xaq lagu dilina gardaro lagu dilay oo ma arkaysa iyaduna calaamad wanaagsan weeye sidii loo dilay Abu Bakar loo dilay Umar sidii loo dilay Uthman sidii loo dilay Ali waad ogtihiin intooda badan waxa lagu dili jiray waqtiga salaada waxaan leeyahay waxay ka faa'iideystaan dadkan noocaanhu meel aan deganayn meel aan maamulkeedu adkeyn bay ka faa'iideystaan qolada maamulka haysa qolada ka soo horjeedana hal shay baan leeyahay qolada maamulka haysa waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqa oo maamulka wuxuu ku adkaan karaa inaad shariicada islaamka dabaqdaan ayadaa nolol lagu gaarayaa waxaan kale oo nidaamkan dimuqraadiyada iyo axsaabta iyo gaalada waxaan halaag ahayn lagu gaarimeeyay shariicada islaamka dabaq oo raac shariicada islaamka oo dadka maaragtay ugu wanaagsan ummadda u dhiib talada oo la kaalmaysa talada adiguna ka mid noqo kuwa shariicada Ilaahay dabaqa kuwa ka soo horjeeda waxaan leeyahay in maanta la dilay Sheekh Cabdiqaadir iyo amtaashiisa iyo Dr. Axmed qayb weyn baad ka qaadateen markaad amniga khalkhal galisaan oo aad maaragtay zaczaca ku sameysaan wadanka oo wadankii aad maaragtay been iyo dacaayad iyo maaragtay iyo fitan aad galisaan dhiigiisi qayb baad ka tihiin waxa isna booqnay Sheekh Cabdi Umal isna sidoo kale tacsi kadib waxa uu ka hadlay muhiimadda sheekhu u lahaa bulshada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in uu ahaa sheekhu macalinkiisii إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed si guud gaar ahaan eheladii Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax uga tacsiyeynaya geeridii sheekha ku timid shalay lagu dilay magaalada Garowe maantana aaskiisu ka dhacayo arintaas oo runtii ahayd arin ummadda Soomaaliyeed culays badan runtii ku leh ilaahayna waxaan ka baryaa tabaaraka wa tacaala inuu sabir iyo iimaan naga siiyo Sheekh Cabdiqaadirna ilaahay uu naxariisto ayadana Sheekh Cabdiqaadir isagoo salaad casar ku jira ragcadii ugu dambeysay ku jira inuu sujuudsanaa inuu rukuucsanaa salaadu ku dhex jiray ayay tii alla ku timid oo la dilay amal ilaahay loogu dhawaado lala hor istaagana salaada ugu fadli badan isagoo rabbigii hor taagan ayaa la dilay waxa kale oo aan iyana booqanay si ay uga hadlaan dilkii amaba tacsidii Sheekh Cabdiqaadir Gacmay Sheekh Shakuul iyo Sheekh Cabdiqaadir Boobe waxana idil ahaanba culimada ay si siman uga wada hadleen dilkii loo geystay Ilaahay uu raxmaday Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax oo gacan ka xaqdaran ku dishay gudaha deegaanada Puntland kullu nafsin dha'iqatul maut naf walba geerida way dhadhameynaysaa waana waxna wada sugaya
waxaan u tacsiyeynayaa qoyskii uu ka dhashay sheekhu carruurtiisii iyo reerihiisii waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan culimada Soomaaliyeed iyo culimada islaamka meel walba ay joogaan geerida naxdinta leh ee inala soo daristay iyo dilka waxashnimada ah ee loo geystay sheekheennii runtii shakhsiyad cajiib ah ayuu sheekhu lahaa oo aan la soo koobi karin wanaageeda nin taqi ah oo cibaado badan nin maxaan ku idhaahdaa maaragtay geesi ah oo aan ka baqin waxa uu qabo inuu muujiyo nin maxaan ku idhaahdaa daaq badan oo xishood badan nin adag isagoo da' ayuu dadka salaada ugu horkici jiray ma daali jirin mar walba u taagnaana waxay ahayd mustaqbalka iyo horumarka ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed taagnaa marka shakhsiyad cajiiba ayaa ummadii ka baxday Allahu ta'ala wuxuu ka tagayna lama iloobi doono insha Allah ta'ala turath buu ka tagay iyo dhaxal aan la iloobi karin marka sheekha inuu geesi waxyaabaha muujinaya waxaa ka mid ah markii horaantii sagaashadii dagaalkii ka dhacay bari mowqif waqtigii uu sheekhu qaatay adag oo waxaa jiray aad loo dhibsaday mowqifkaasi wuxuu ahaa inuu dhalinyaradii wadaadada ahayd ee dagaalamayay ويجي حبد ويجي دجال كحون لقات أنتاس ضد بدني وحيو أركان خلاقة وأركان سيد ترجمي حتى الشيخ والد عليه نين مال دير وحكا كأرك أيوها هذا مدرس أنا ذا قفل بكبر عروبي وحق الشيخ كهلي إنه صح حيد أي اللي كبر عروبي حدونا ما أنت مالك علاده الشيخ وشوشين لهينا ما مال ماشي قدام بين لهيد الله ما قرنا إله سبحانه وتعالى وباوك إشوي الميساء قلبي قلت يودا لكن ما أردنا إنه وح إلهي سبحانه وتعالى رالق لي مويا وحكله حلين عليه الصلاة والسلام وحو تلمامي هددكو من قتل مؤمن لم يقبل صرفا ولا عدلا روح مؤمنة والله سبحانه وتعالى رمي ديس الروح كفرحة سنة إيا فرلتون كما أقبل وكي كفر حي محاد كمال نسا كيسو أمري يكيق عنت قيستي يقولوا بدي شرقول كسميي codadka culimo u diinkan iyo culimo kale oo badan badawadayaal iyaga oo siyaabo kala duwan u hadlaya oo intan ka badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyadeena dambe ee TV-ga caalamiga ah ee Somsat ka bixi doona